asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa idin salaama dhammaan ardayda igu xidhan videogan waxaa iga soo codsaday arday badan oo soomaaliyeed oo doonaya inay bartaan sida loo install gareeyo web server iyadoo la isticmaalayo samp ama XAMPP. Samp waa software loogu talagalay in lagu qoro koodhka PHP da. Sidoo kale waxaa la socda sampta MySQL database. Marka daawasho wacan soo dhawaada. Markaas aad u download gareysto samp waxaa booqan doontaa website-kooda ama Google-ka waxaa ku qortaa download samp. kadib waxaa kuu soo baxayaa website kala yiraahdo apachefriends.org. linkiga waxaa idiin soo geli doonaa qaybta description-ka. marka website-ka soo gasho kaliya waxaa taabataa linkiga ku qoran tahay PHP last version. hadda version-ka ugu dambeeya waxaa weeye 8.1 laakiin inaga waxaan isticmaali doonaa version-ka 7.4 because isaga stable ah. haddaad doonto 8.1 isticmaali kartaa laakiin waa uu cusub yahay. marka waxaan idin talinayaa inaad download gareysataan ka 7.4-ka. marka click waxaa taabanaysaa meesha ku qoran tahay download kadib download xagaas buu kugu bilaabayaa. marka downloadku inoo dhamaado insha Allah aan isku soo noqon doonaa si aan u sameeyno installation-ka. marka downloadku uu ku dhamaado waxaa sameysaa failka click garay soo fur open dheh. kadib marka open tiraahdo wuxuu ku soo saarayaa ma hubtaan ku shubato yes baad oranaysaa. imika installation-ka anaga aan isticmaalno Windows laba mar baan taabtay ka iska daa. marka kadib waxaa inoo bilaaban doona in yar kadib processki installation-ka. marka u horeysa aad furto samp ama XAMPP installation wuxuu ku weydiin doonaa important because an activated user account. marka warning-kan wax muhiim ma ahan oo isaga tagi kartaa kadib okay baad taabanaysaa. marka waxaa ku bilaabanaya imika setup wizard-ka dhowr su'aal buu ku weydiin doonaa. marka namariya imika aan isla sii marno next baan oranaynaa. marka u horeysa halkan wuxuu ku weydiinayaa serverska aad doonaysid inaad ku shubato. serverska aad doonaysid inaad ku shubatid waxay noqon karaan inaad ku wada shubato by default sida application-ka hadda uu kugu diyaariyey ama inaad ka doorato waxyaabaha aad doonaysid kaliya aad iska reebto waxyaabaha kale. marka horeysa serverska anaga aan isticmaalayno horta Apache isaga ma ka reebi kartid waa kan default-ga laakiin waxaa ka reebi kartaa saddexdan kale. MySQL-na u baahannahay isaga wuu noogu jirayaa. Valzilla anaga ma u baahnin, Mercury Mail-na ma u baahnin, Tomcat-na ma u baahnin. sababta aan uga reebay waxaa weeye faylal badan buu abuurayaa computer-ku ka buuxinaya. marka haddii aadan u baahnayn waa iska reebi kartaa laakiin haddaa u baahantaa is leedahay waa isticmaali doontaa ku darso waxba ka reebin. sidoo kale qaybta programming languages-ka anaga PHP baan isticmaalanaa marka Perl waan ka reebaynaa. Perl ma u baahnin. qaybtan kale wuxuu ku weydiinayaa program languages-ka kale aad doonaysid inaad ku shubato. inaga PHP ba admin waan u baahannahay si aan database ku manage gareyno laakiin weblazer-ka iyo fake send email-ka labadan waan ka tagi doonaa ma u baahnin. kadib next waan taabanaynaa. kadib halkan wuxuu inoo weydiinayaa location-ka default-ga aan doonayno inaan ku install gareyno sampta. sida caadiga sampta waxay isku install gareynaysaa C folder-ka la dhaho XAMPP oo ku dhex jira C-da. adiga waa bedeli kartaa desktop-ka waa geyn kartaa documents waa geyn kartaa laakiin aniga waxaan doonayaa in halka inoo taalo because awoodo badan bay yeelanaysaa hadhow markaad doonaysid waxyaabaha qaar ku shubatid laakiin desktop-ka meelaha haddaad geysid hadhow waxaa laga yaabaa inay kaa masaxanto ama adiga si accidental aad isaga tirtirto. marka koodhkii aad qortan uu marka sidaa kaaga baxo. marka sidaa darteed aniga waxaan samayn doonaa inaan halkan ku dhaafno. kadib waxaan taabanaa next. luqadda English buuna weydiinayaa. English baan oranaynaa haddii af Soomaali ku jiro waan dooran lahayn laakiin waa English iyo German. so English-ka noo door next dheh. kadib wuxuu ku weydiinayaa inaad wax faahfaahin ka hesho website-ka samp. haddii aad next tiraahdo imika linki uu noo furayaa. linkiga aniga ma doonayo inaan furo iska reebayaa ka next baan oranayaa. hadda wuxuu dhahayaa setup-kaaga waa diyaar waad ku shuban kartaa samp. next markaad taabato installation-ka waa bilaabanaya. installation-ka waxaa laga yaabaa inuu xoogaa qaato marka installation-ka markuu dhamaado baan isku soo noqonaynaa oo in yar xoogaa buu socon doonaa. marka inta installation-ka soo sugaynaa. marka installation-ka intuu socdo marmarka qaar waxaa kugu soo bixi doonaa inuu ku weydiiyo inaad u ogolaato firewall-ka. kadib waxaa oranaysaa un allow access. marka uu sii dhamaanayo ku weydiinaya intaa. kadib installation-kaagii wax yar baa ka dhiman hadda wuu sii dhamaanayaa in yar baan sugaynaa. marka installation-ka hadda waxaa ogaataa mar walba wuxuu ku xiran yahay computer-kaaga iyo awoodiisa. haddii computer-kaaga awoodiisa daciif tahay waxaa laga yaabaa inuu waqti intaa ka badan qaato. hadda marka installation-ka uu noo dhameeyey finish buu noo soo saaray. marka waxaad samayn kartaa halka inaad tigta saarto kadib markaad tigta xaggaa saarto control panel-ka uu samp uu kuu furaya automatic markaa finish tiraahdo. hadda waan finish baan dhahan waxaa inoo soo baxay control panel-ka samp isticmaalayso.
marka control panelka sharaxaad gaaban haddaan ka bixino halkan wuxuu ku siinayaa surfaceska iyo moduleska ay kala yihiin. Surfaceka koowaad waxaa weeye Apache, ka labaadna waa MySQL. anaga labadaas hadda ku shubnay, kuwan kale waxaa weeye disable sababtoo markaan ku shubinaan ka reebnay. marka sida caadiga Apache wuxuu isticmaalaysaa portiga 80, MySQL kan wuxuu isticmaalayaa 3369 inuu yahay umaleynaya. waxaan ka ogaan karnaa halka inaan kasoo eegno surface port setting. MySQL ka 3306 buu isticmaalayaa isaga, sorry. marka hadda sida caadiga okay hadaad tiraaho aan hadda computerkay softwares badan ku jiraan automatically marka u horeyso oo aan hadda start horu ka soo baxaya. laakiin adiga waxaa laga yaabaa in software hore kugu jireen portiska qaarkood blog uu kaaga dhaca ama software kan ka horeeyay uu isticmaalay portiga. haddii saa ay kugu dhacdo waxaan ku tusin doonaa sida portiga u bedeli lahayd. marka MySQL kan wuxuu ku dhahayaa firewall ku ogolow alaba baad oranaysaa. hadda labadooda waa cagaar weeye, markii halka akhtarka tahay ama cagaar ay tahay oo uu noo rangareysan yahay. sidoo kale waxaa samayn kartaa inaad joojiso portiga, waa ka bedeli kartaa. waxaa taabanaysaa config, kadib port and surface and port setting, kadib halkan baa imaanaysaa. Apache imika wuxuu isticmaalayaa port 80, MySQL kan wuxuu isticmaalayaa port 3306. haddii labadan hore loo isticmaalay ay kaaga xiran yihiin waa iska bedeli kartaa. 90 baa ka dhigi kartaa kan, 90 baa ka dhigi kartaa, 100 baa ka dhigi kartaa any port. marka aan hadda ma bedelayo, waxaan u isticmaalayaa sidii ay ahaayeen markoodii hore. marka iska xidhkaas dib baan u start gareynayaa. hadda way ii furan yihiin, way ii start gareysmeen. haddii halkan aan imaado aan furo local host wuxuu ii soo saarayaa Apache, MySQL, MariaDB, PHP, Perl, PHP, SAMP. wuxuu ii soo saarayaa portalkii SAMPka, dashboardka hadda joogaa oo ii ku shaqeynayaan. haddaan doonaya inaan tijaabiyo MySQL kiinu asagan ii shaqeynaya, waxaan furaya localhost/php my admin. isagana uu ii soo baxay. marka waxaan filayaa videogan gaaban aan ku sharaxayay sida loo sameysto web serverka inaa fahamteen. arday badan oo jaamacadaha dhigta markay cusub yihiin waa la weydiiyaa ama way ugu jirtaa courseska inay sameeyaan. marka wixii su'aalaha fahmayso qaybta commentiga noogu reeb, insha Allah inaan kasoo jawaabo isku day doonaa. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.